gabdhuhu markay innaga inoo dhashaan soomaalida wax inay gabar tahay ogaadaa waxaa ugu horeeya umulisada qofkan ay gacmaheeda ku soo dhacday ka soo qaaday qofkan dhalaya hadday aragtay gabar inay tahay ma sheegi karto madaxay laablaabi waa la sugayaa geedkaa fooda loogu hayaa ilaahay ma kala keenay waa kala tin maxay dhashay waxay dhashay iyadaas dhashay waxna ma dhalin waxaa mudaaharaadka bilowday umulisadii sheegi maysa kuma dhici karto xaggaasaa la iska dhigaya dan lagama leh bal wiil muu noqdo qooro xun lagu arko iyada ha aralaaste afka sheegid iyo su-aalba iyadoon sugin umulisadii baa aralaasaysa korkeeda xabadaa laga ridaayay naagtana wiil bay dhashay wan baa loo qalayaa barida laga siinayo saa wiil bay dhashay ilmihii waa kuusteen wiilka dugsi baa la geynayaa macallin baa loo geynayaa gabartana waa lagu xamalanaya hadday jiifaan oo yaryar yihiin wiilka oohin looma ogola kolkuu wiiq yidhahda waa lala boodaya waa la dhunkanayo gabadha oohin wax ka dhibi mayse meelo badana u banbanaan oy ka duleeshaaye iska dhaafaa laleeyahay maanta oo dhan bay gedgadoomaysaa oy kaayida ku lamaysaa la qaadi maha wiilka waa dibiraya meeluu ka neefsado male waa isku mid isku inaa ka duleesha saddexaa ka duleesha kiiba idan taas waa lagu kala bedelay hadduu kustay wiilkii dugsiyaa la geeyo qur-aankaa la baray gabarta dugsi la bari ma isku si loolama hadlo wiilka alla ku qaad lama dhihi karo rag lama habaraa lagu leeyahy iyadana si iyadoo ku weynaanaysa hadal xumada soo qaad alaabta dhulway ku dili waa kusteen oo waa tabar galeen wiilkii gabaraa loo soo gaday iyada nin labaadaa laga gaday aniga inta yareedaan soo baabi'iyey ama inteeda kale israaci inaa xoolo laga qaadana lagu daraa walxaqiiqa runta gabar iyo wiil gabartaa ka fiican awalan waxaad ka gaa inay ka fiican tahay qur-aanka markuu awlaadda ka hadlaayey lilaahi mulku samaawaati waalardi yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaasanu ilaahiy gabdhaha laga bilaabo wayahabu liman yashaau dukuura waa dambeeyaan wiilasha aw yuzawijuhum dukraanan wa inaasan wayajcalu maa yashaau xaqiima gabar hadday kuu dhalatay kuu joogto reerka anfici wiil muxuu tara lugooya waxaan ma wax soo jireen ahaaya mise oo wax hadda bilaawda waa wax weligeed jireen anaga faa'iido maynoo tahay haddaan niman nahay maya in sidaas naloo soo koriyo faa'iido nooma ah dhibaato ayaa u tahay qoyskeena dhibaato ayaa u tahay koritaankeena dhibaato ayaa u tahay ragnimadeena xitaa anaga waxaan u malaynaa in la koolkooliyey laakiin handicap baana laga dhigay dad waxba aan qabsan karin adduunkii ka dhacay buumahooda aan dhaqan karin cunto aan karsan karin gabar aan xushmeyn karin nolosha dhan ayaana laga riday laakiin hooyadeen iyo aabeen waxay u maleeyaan wiilka in la sharfay oo la qiimeeyay gabadhaas la duleeyay oo la dhibayna in la baray wax ayadan waqtigeeda ciyaalnimadaa la dhaafiyay annagana handicap baana laga dhigay iyo dad waxba aan qabsan karin oo curyaan dad ahaana laga dhigay ilaahay agtiisa dumarka ayuu jecel yahay ama gabdhaha aayadda qur-aankaana dhahaysa lilaahi mulku samaawaati walard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur markasta ilaahay wuxuu ku hormariyay gabadha waxaan idin siinaa gabdho sababta u leeyahay mataqaanaa haddee ninka ilmo galeen ma haysto gabadha laakiin ilmo galeen ayaa haysataa ilaahay markuu wax abuuraayo qof bil aadan abuuraayo gabadha caloosheeda ayuu ku abuuraa ninka waxba ma abuuro ninka dhibaato unba adduunka kusoo kordhiyaa gabadhana jacayl ayay kusoo kordhisaa isku mid maha marka iskuma dhow marka hadda ciyaalka aan korinayno gabdhow iyo wiilalow ciyaalka aan korinayno si siman aan u wada korino oo ilaahay ogol yahay haddaad rabtiin inaan dhisno dad wanaagsan hadda waa aragteen 40 sano dadkaan soo saarnay niman walwaalan aan xaasaskooda xishmeynayn gurigooda xishmeynayn aan aqaanin aabanimo aanan aqaanin ragnimo aanan aqaanin xishmad iyo wanaag iyo jacayl maxaa yeelay waa sidaasna lagu soo kori waayo marka aan bedelna hadda wax diin ah ma ahayn oo dhaqan ba ahayd anaga waxaan dhahnaa gabar ama guri hagaaga jirto ama god hagaaga jirto
xilliga jaahiliyada ayaa saas la oran jiray gabadha hala duugo marka hadda anaga waqtiga jaahiliyada ma marayna anagoo quraanka gacanta ku haysano xifdisanahay maya aan ka hortagna waxaas insha Allah